kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah jabhadda TPLF oo sheegtay in ciidamada dawladda Itoobiya iyo xulufadoodu ay duqeyn cirka ah la beegsadeen saldhigyo u dhow xadka gobolada Tigray iyo Amxarada maalinta xanuunka dhimirka oo dunida maanta laga xusayo haddaba waa sidee xaaladda dadka qaba xanuunka dhimirka ee Soomaaliya waraysi ayaanu idinka haynaa Iran oo kordhisay in ka badan 20% macdanta uraniumka ee laga sameeyo hubka nuclearka qodobadaas iyo kuwa kale oo ciyaarihiina ay ku jiraan ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta aan ku bilowna wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada dawladda federaalka iyo xulufadoodu ay weeraro culus ku qaadeen jabhadda TPLF wakaalada wararka AFP ayaa la wareediyo ay ka heshay hay'adaha samafalka ee jabhado ku sheegtay in uu socdo guluf culus oo ay qaadayaan ciidamada dawladda iyo xulufadoodu afayeen u hadlay jabhadda TPLF oo muddo 11 bilood ah ku dhex jirtay dagaal ay la galeen xogaga taabacsan dawladda federaalka ayaa sheegay sabtidii in ay jirto dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo ka dhanaha jabhadaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo 5 cisho ka hor loo dhaariyay muddo xileed cusub kadib markii uu ku guuleystay doorashadii baaxadda lahayd isagoo wacad ku maray inuu difaaci doono sharafta Itoobiya inkastoo ay sii kordhayaan dhaleecaynta caalamiga ee dagaalka iyo qayladhaanta ku saabsan dhibaatada bini'aadanimada ee ka jirta gobolka Tigray afayeenka TPLF Geti Jawreda ayaa sheegay in ay jiraan duqeymo u badan cirka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo madaafiicda lagu garaacay jabhadda waxaan ku kalsoonahay inaan ka hortagi doono weerarka dhinac waliba ayuu yiri afayeenku AFP oo xiganaysa ila wareediyo laga helay kooxaha gargaarka bini'aadanimo ayaa sheegtay in askarta federaalka iyo kuwa gobolka Amxarada ay weeraro cirka iyo dhulka ah ka fuliyeen agagaarka waqooyiga Wolo iyo goobo kale Khamiistii iyo Jimcihii saraakiisha Amxarada iyo sidoo kale saraakiisha federaalka iyo militariga ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan howlgallada militari ee la soo sheegay inkastoo AFP sheegtay in aysan si madax bannaan u xaqiijin karin howlgalladaasi Iran ayaa sheegtay inay soo saartay oo kordhisay in ka badan 20% macdanta uraniumka ee barnaamijkeeda nuclearka madaxda hay'adda tamarta atomikada ee Iran ayaa sabtidii sheegay in Iran ay ka gudubtay 120 kilogram oo iminka haysato tiradaasi in ka badan bishii September wakaalada tamarta atomikada caalamiga ayaa waxay sheegtay in Iran ay uraniumkeeda kobcisay in ka badan intii loogu ogolaaday heshiiskii ay la gashay quwadaha caalamka heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ayaa dhigayay in Iran aysan uraniumkeeda kobcin karin wax ka badan 3.67% taasi oo aad uga yar tirada loo baahan yahay si loo soo saaro hub nuclear oo ah 90%. heshiiskaasi oo Iran ay la galeen Ruushka, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa Iran ka qafiifiyay cunaqabataynteeda dhaqaale taasi oo ay ku bedelatay in ay dhinto barnaamijkeeda nuclearka ase yeeshee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiska ka saaray Washington sanadkii 2018 waxaana kadib Tehran ay joojisay inay u hoggaansanto qodobada heshiiskaas dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta xanuunka dhimirka Soomaalida ku nool geeska Afrika ayaana xanuunkan uu dhibaato fara badan ku haya iyadoo dadkaasi aanay helin waxa la xiriira adeegyada dhinaca caafimaadka hay'adda WHO ayaa waxa ay sheegtay in 3 qof oo Soomaali ah midkood uu saameeyay xanuunka dhimirku haddaba arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxaan ka wareysanayaa Roodo Cabdullaahi Colaad oo ah madaxa hay'adda Mandeeq oo qadka Skype-ka uga jirta magaalada Muqdisho Roodo adigoo marka hore barnaamijka ku soo dhawaanaya waa sidee xanuunka dhimirka ee Soomaaliya Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamayaa bahda VOA waxaana kaloo idinkaga mahadcelinayaa in aad carabka ku dhufatay adeeg la'aanta ka jirto ama daryeel la'aanta ka jirto ama daryeel xumada ka jirto marka aan ka hadlayno daryeelka dhimirka xaqiiqdii waa arrin aad u xanuun badan waxaana la qaybsanayaa dhammaan qof kasta oo Soomaaliyeed meel kasta joogaan ee garan la qofkoodii ehelkoodii walaalkood wiilkoodii ama se qaraabadoodii xanuunsanaa wax ay ka sameeyaan
arinta la xiriirto daryeelka dhimirka adeegeeda waxaan dhihi karaa waddanka kama jirto waxaan usoo qaadanaya waxay tahay ma ahan inaan ka hadalno 5 xarumood ee maanta jirto waa alxamdulilah laakiinse xaqiiqdu waxay tahay ka dowlad ahaan ka muxuu ahaay dhaqaatiir ahaan waxaad u malaysaa adeegaas baahidiisa sida ay u badan tahay jawaabtiisa inaysan wadankii aysan u oolin marka adeeg la'aan caafimaad oo dhinaca dhimirka la jirto oo aad u baahsan oo taabanaysa caafimaadkii guud ayaa wadanka ka jirto waa gartay waxaad sheegtay in 5 xarumood oo kaliya ay Soomaaliya ka jiraan marka baahiduna way badan tahay dabcan sida aad adiguba xusayso amaba hay'adaha caafimaad ka shaqeeyo dhamaantood ay isla qirayaan sidee marka xarumahani u maareeyaan adeegay dadkaasi u baahan yihiin xarumahan waliba 5 ee ka jirto waa xarumo lagu daaweeyo dhinaca psychiatriga oo dhinaca medicationka waxaa kaloo baahidiisa jirtaa dhinaca psychologist ama counselorka baahidiisu waaba wali xarun annaga oo tayadeeda lahayn oo waliba aad ay u yar tahay bukaanada aan aragna maahane aysan jirinin waxaad arkaysaa maareynteeda inta badan waxay ku dhacdaa qaabab kale maadaama dadka aysan aqoon badan u lahayn dhinaca daryeelka dhimirka qofka Soomaaliyeed wuxuu la sugaa qofka ka xanuunsan ilaa uu ka gaaro meel aan laga soo qaban karin wax ka hortaga ahna ma lahan wax ka daba tag oo daaweyntii oo saxaana ma jiraan maadaama ay jiraan marka waxaa dhacdo inta badan in la geeyo dadka xarumaha cilaajka kale in la geeyo qofka waxaa dhici karto in uu maanta oo dhan ka dhamaanay inuu aado dhakhtarka neerfaha waxaad arkaysaa dhaqaatiirta badanaa dadku ay aadaan ama si aad u buuxa inay yihiin dhaqaatiirta neerfaha marka waa adigio muxuu ahaay ay ku hayso qaaxo oo laga daaweeyo kansar ama se waxii ku haaye maahane wax kale baahidaadii ay noqoto in laga daaweeyo way rodo waxaa jirta sidoo kale marka laga hadlayo bulshada waliba Soomaalida ku dhaqan bariga Afrika iyo Soomaaliyaba dhinaca wacyigelinta iyo sida dadkan loola dhaqmo iyo xataa markay noqoto tixgelinta iyo dadkaasi in loo naxamo loo naxariisto dhinaca wacyigelinta door intee leeg baad ka qaadataan adinku sideese wacyiga bulshada kor loogu qaadi karaa iyadoo markaasi bulshada la barayo amaba lagu waaninayo inay dadkan u dhimriyaan oo ay u naxariistaan dhinacaas wacyigelintana dhinacyada ugu ba'an ee baahida ka jirtay ka mid tahay anaga qaabka aan ku sameeyno waxay tahay waxaan ka bilownay hay'adihii dawladda iyo ganacsatadii inay fahmaan baahidan jirto sababtoo xoogeena inta ugu badan maandeeq mental health ahaan waxaan saarnay hay'adaha internationalka xarumaha ay la shaqeeyaan oo ay kala shaqeeyaan local NGOs-ka sidoo kale dawladda oo kale institutionadeeda kala duwan sida wasaaradda arrimaha gudaha oo kale wasaaradaha kale ee la xiriiro caafimaadka oo kale oo dawlad goboleedyada in qaarkood ay soo dhaweeyeen oo tababaro loo sameeyo lagu wacyigelinayo baahida loo baahan yahay waxaa kaloo jiro mas'ado fahan la'aanta waxay ka jirtaa qofka bini aadanka hadda haddaan ku weydiiyo see tahay iyo see dareemaysaa way kala duwan tahay see dareemaysaa markaan ku weydiiyo waxaan la falgelayaa oo ku weydiinayaa xaaladda markaas aad ku sugan tahay maskaxiya marka waxaad og tahay inta cudur ee qofka bini aadanka jirkiisa ku dhacdo in ka badana waxay ku dhacdaa qofka maskaxdiisa oo kale marka ma ahan kaliya markaan daryeelka dhimirka ka hadlayno inaan ka fiirno kaliya dadka gaaro heerka ugu sareeyo ama waxyaabaha loo yaqaan psychosiska oo qofkii uu maqlaayo dhawaaqiyo inuu qof la hadlaayo waxbuu arkayaa qofka markaasoo kale waa meesha ay dadku geeyaan xarumahan aan hadda kasoo hadalnay ee psychiatriga ee dadka lagu daaweeyo oo markaas ay qofka u baahdo qofkiisa inuu ordaayo lahayn karinin dhaqan aad u adag uu qofkii uu ku dhaqmaayo markaasoo kale qofku wuxuu gaaray heer aad u sareeyo waa heer la daaweyn kara laakiin waxaa ka badan oo annaga aan aragnay dadka maalin walba noloshoodii ay noqotay inay la noolaadaan xanuunyada dhaawacyada qarsoon waa tahay ugu dambeyntii adoo soo koobaya marka laga yimaado tan dawladda dhibaatadan si guud sidee wax looga qaban karaa si guud waxaa wax looga qaban karaa wacyigelin badan in laga sameeyo
oo weliba laga bilaabo jaamacadaha oo kale iskuullada goobaha ugu muhiimsan oo laga bixinayo caafimaadka oo kale waxyaabaha laisku qaldo waxay tahay marka mental health la maqlo facultyga caafimaadka lagama hadlo mental health waxaa laga hadlayaa facultyga social science-ka oo qaybta marka uu yahay psychologist ama counselor marka laga hadlayo ama social clinical social worker marka waxaan isleeyahay sida ugu wacyigelinta ugu badan oo la sameyn karo waxay noqon kartaa in jaamacaduhu ay u istaagaan inay wax ka qabtaan aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Rooda Cabdullaahi Colaad oo ah madaxa hay'adda Maandeeq oo hay'ad ka shaqeysa xanuunada dhimirka saldhigeeduna yahay magaalada Muqdisho iyadoo magaalada Muqdisho joogta qadka Skype-ka igu waramaysay Roodo aad baad u mahadsan tahay aad u mahadsan tahay ugu dambeyntiina magaalada London waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistee qoraagii Soomaaliyeed Maxamed Daahir Afrax oo maalmahan xanuunsanaa marxuum Afrax waxa uu ahaa qoraag ku caan baxay sheekooyin fara badan isagoo qoray sheekadii caan baxday ee buuggii Maanafay oo la qiray inay ahayd mid ka mid ah sheekooyinkii ugu cajiibsanaa ee af Soomaali lagu qoro Afrax waxa uu ahaa aqoonyahan naftiisa iyo maskaxdiisaba u hibeeyay horumarinta afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu ahaa asaasihii naadiga qalinleyda Soomaaliyeed ee Somali Pen marxuum Maxamed Daahir Afrax waxa uu kamid ahaa dadkii hindisay aasaasayna akademiyad goboleedka af Soomaaliga ee aga oo uu madaxna u ahaa Allah u naxariistay marxuum Afrax waxa geeridiisa ka tacsiyay dhammaanba madaxda iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed haatan haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha kaalinta saddexaad ee koobka loo yaqaano UEFA Nations League ayaa waxaa goor dhaweyd ku tartamay wadamada Talyaaniga iyo Belgiumka ciyaartaasi ayaa kama dambeystii waxaa 2-1 ku guuleystay xulka qaranka ee Talyaaniga ciyaaryahanada Nicolo Barella iyo Berardi ayaana labada gool oo ay guusha ku heleen xulka qaranka ee Talyaanigu qaybtii dambe ee ciyaarta u dhaliyay xulka qaranka ee Belgiumka ayaan la soo shirtagin xidigihiisii caanka ahaa laakiin waxa uu qaybtii dambe ee ciyaarta soo geliyay ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo isagu dhigay goolka ay kooxda Belgiumku la yimaadeen si kastoo taaba xulka qaranka ee Talyaaniga oo dhawaantana ku guuleystay koobka qaramada Yurub ayaa tartanka UEFA Nations League waxa uu ka galay kaalinta saddexaad ciyaarta kama dambaysta ee koobkan ayaa goordhow waxaa fooda isku dari doona wadamada Spain iyo Faransiiska iyadoo markaa ciddii guuleysata ay kaalinta koowaad iyo koobkaasiba ku guuleysan doonto wahagaag daawadayaal guud ahaan barnaamijka qubanaha maanta inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad iyo dhammaan baabahada qubanaha idinku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta